الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وكلمتي شنية طبنات هي كتاب كني الفوائد للإمام ابن القيم الجوزية يو فائدة عصب كلمتي هوري ما إنان حسين كلمة إنتي لمبرهان كاهيد طبعا وكلمتي أفرية طبنات باهيد مدي تنكو الرئيسي كلمدان أما فائددان وحكم مقعاب ابن القيم أنواع هجر القرآن وقيبها وقيب سم القرآن كاللغة هجرودي الله سبحانه وتعالى وحير وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني الددك وحي كدغان قرآن كميد مهجور لغة هجرودي لغة تغي marka maxaa la odhan karaa qofkeebaa la odhan karaa qur'aanka wuu ka tegey wuu ka hijrooday wuu ka fogaaday ibnu qayim ilaa 6 qaybood buu u qaybiyey hajriga qur'aanka laga fogaaday waxaa ka mida buu yidhi in maqalkiisa iyo rumayntiisa laga fogaado oo laga hijroodo waxaa ka mida in laga hijroodo ku dhaqankiisa iyo in wixii uu qur'aanku xalaaleeyey la qaato wixii uu xaraameeyeyna laga joogo qaybtaasna waa qaybta ugu adag weeye oo qur'aanka ku dhaqankiisa oo laga tegey waa hajri baa la odhan karaa qur'aankii baa laga hijrooday qaybta saddexaad wuxuu yidhi waxaa laga hijrooday taxkiim iyo taxaakumu ilayhi fi usuuli ddiini wa furuucihi qur'aankii oo in la isku xukumo la isku dhaqo ee laga hijrooday iyaduna waxay noqonaysaa hajrul qur'aan qaybta afraad waa qur'aankii oo tadabburkiisii iyo fahamkiisii iyo wixii alla subxaanahu wa tacaala ula jeeday oo la garab maro oon la imaanin iyadana laga tegayna hajri baa la odhan karaa qur'aanka oo la isku daaweeyo cudurrada dhan ee nahayana la iskaga daaweeyo haddii laga tagana hajri baa la odhan karaa laakiin alxamdu lilah ee arrin aad iyo aad xusid mudan culimmaduna ay ka hadleen la isweydiina karo qofka qur'aanka akhriskiisa intuu soo qaado maanta aan aqrinin jus ama xisbi ama inta ka badan ama ka yar oo waxba ka aqrinin ma la odhan karaa wuu ka hijrooday culimmadu waxay yidhaahdeen qofka muslimka ah oo salaad tukada alxamdulilah lama odhan karo qur'aanka wuu ka hijrooday sababtuna maxaa jira muslimka tukadaayey maanta wuxuu aqrinayaa faatixada caawiya maanta iyo caawa 17 jeer taqriiban waa salaadihii iyo ragcadahoodii faatixaduna waxa weeyaan acdamu suura fi kitaab illah suuradda ugu weyn qur'aanka marka mar hadduu muslimku aqrinayo suuratul faatixa lama odhan karo waa mahjuur oo wuu ka hijrooday qur'aankii waa ilaahay subxaana wa tacaala xamdigiisa ka mid tahay laakiin qaybihii kaloo dhan baa maqan intaasoo dhan waxay gelayaan fii qowlihi tacaala wa qaala arasuulu يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول كوحو يري الله يو dadkaygii qur'aankii way ka tageen marka haddaba hajriga qaar buu ka fudud yahay saad u jeedo fa kullu man kana fii qalbi xarajun min alqur'aan qof kasta oo qalbigiisa ciriiri qur'aanka ka dareemaya waa mariid wuu jiran yahay qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala caafaana allah wa iyaah innaga oo dhanba ilaahay naga caafiyo haddaba walaalayaal qur'aanka dacwadaasi si aynan waalqur'aanu xujatun laka ow calayk ama xujuu kuu noqon doonaa qiyaamada isagaa kuu doodaya ama xujuu kugu noqon doonaayo isaga ayaa kugu dacwoonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhiga kuwa qur'aanku u doodo kuwa uu yidhaahdo anay way aqrin jireen xadiidkii rasuulka sala allahu calayh wasalam
القرآن والصيام يشفعان للعبد وكيلها قرآنك iyo soonkuba way u shafeecayaan way u ergeynayaan qofka ee samayn jiray kana wuxuu odhan yaa rabbi habeenkii buu aqrin jiray kana wuxuu odhan doonaa yaa rabbi maalintii ayuu soomanaan jiray ilaahayna xadiidkaas waxaa lagu sheegay oo lagu xusay in shafaacadooda iyo ergadoodana alla uu aqbalayo allah inaga dhigo kuwa qur'aanku u doodo ilaahay subxaanahu watacaala inaga dhigo kuwa ku liibaana adduun iyo aakharaba وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته